degmada ceel waaq ee gobolka Gado ayaa waxaa maantay lagu soo gabagabeeyay doorashada shantii kursi ee ugu dambeysay 16 kursi ee ku asteysan gobolka Gado taasoo ka dhigan in Jubbaland ay soo gabagabeysay guud ahaan 51 xildhibaan ee laga doorto deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland doorashada shantii kursi ee maanta ka qabsoontay degmada ceel waaq ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo u kurgalayay habsami socodka doorashada iyo sidoo kale gudiyada doorashooyinka heer federaal heer dawlad goboleed ee Jubbaland iyo gudiga xalinta khilaafaadka gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ka warbixiyay qaabkii ay u qabsoontay doorashada shantii kursi ee maanta lagu doortay degmada ceel waaq isagoo ku dhawaaqay natiijada doorashada waxaan u soo istaagay inaan bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Jubbaland aan la wadaago hawshii noo qabsoontay doorashadii soo bilaabatay 2020 ilaa 2022 socotay oo annaga reer Jubbaland ahaan maanta nagaga eg maanta waxay ku soo gabagabowday qaybtii labaad ee deegaan doorashada Jubbaland kuraasi taalay degmada ceel waaqna lagu qabtay shalay aan qabanay qaar maantana aan gabagabaynay shantii dambeysay shalay 12 baa la qabtay maantana 5 baan dhamaynay maanta si loo kala helay kuraasta waa sidan kursiga 131 waxaa ku guuleystay Axmed Cusmaan Ibrahim kursiga 122 waxaa ku guuleystay Mursal Maxamed Khaliif kursiga 110 waxaa ku guuleystay Maxamed kursiga 123 waxaa ku guuleystay Faadimo Faarax Aadan kursiga 125 waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Ducaale waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dawlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican deegaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee ceel waaq shalay 12 baa la doortay maantana 5 isku darkooda waa 16 kursi 16 kursi ee ku asteysnaa deegaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas ay ku eg tahay horeyna waxaan u sameynay 27kii deegaan doorashada koowaad oo lagu qabtay Kismaayo halka waxaa isku darkooda noogu dhameystirmay 51 xildhibaan oo Jubbaland u matali doona dawladda federaalka baarlamaankeeda waxayna kala yihiin 43 aqalka hoose ah iyo 8 aqalka sare ah guul baan idin leeyahay dhammaan allahna guuleeyo ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa soo xiray doorashada isagoo bogaadiyay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen muddadii ay doorashadu socotay inta kadib haday doorashadii noo dhamaatay xildhibaanada la doortay waajibaadka maanta hor yaalla ilaahay idinku asturo xilka waa idin hambalyeynaya kuwa shalay doorashada dhacday iyo kuwa ay maanta dhacday iyo kuwa ka sii horreeyay waxaan u hambalyeynaya inta la tartantay oo u tanasushay ama inta codka laga helay aqbashay ayagana waa guulisteen waa guul kale waxaan kaloo u mahadcelinayaa isqabqabsiga iyo damaca markuu adkaaday dadkii ayagana walaalahood u tanasulay oo Dr. علي أحمد علي دكتور علي ملاق وهذا نقرأ صعده وأن حصي وأن المامي كرين قدوميه دقمة قرباري إيمان عبدو كرشو وأصيغانا مشرعها وتنسولي أمام iyo kuwa kale oo fara badan oo ayagana tanasulo magacooda soo koobi karin maxaa yeelay walaaluhu iyo bini'aadamkaba kugu san caanaha subaga ku dhalaan baa leeyahay wax kasta oo dadka soo dhaxmaro haddii aday kugu fiicanta la yiraahdo guusha waa qofka waa guulist adduunyo aakhiraba wuxuu raadinay wax ka khayr badan ilaahay baa siinay kii loogu duceeyna khayr bay u noqonaysaa
kuwaana waa mahad celinayaa. Ismaaciil Bashiir Warsame, Jubbaland TV, degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo.